Sheekh Mukhtaar Robo Cali Abu Mansuur ayaa isu dhiibay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya sida ay xaqiijiyeen taliyaha ciidanka booliiska gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sheekh Macalin Nuurow. Taliyaha ayaa u sheegay warbaahinta in Abu Mansuur kalisi uu isu soo dhiibay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya isla markaasina maleeshiyaadkii uu watay ay ku sugan yihiin deegaanka Abaal. dhanka kalena afhayeenka madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in qorshaha maamulka Koonfur Galbeed uu yahay sidii nabadgelyo loogu soo dhaweyn lahaa wadaadkan isku dhiibay ciidanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa lagu wadaa maanta inuu tago degmada Xudur ee gobolka Boqol si uu ula kulmo Sheekh Mukhtaar Robo Cali Abu Mansuur. dagaalyahano ka tirsan al-shabaab ayaa olole xoogan ugu jiray inay gacanta ku dhigisaan hogaamiyaha Abu Mansuur muddo badan oo fashilmay kadib markii dagaalo xoogan ay ku dhex mareen deegaanka Abaal halkaas oo ay hadda ku sugan yihiin maleeshiyaad ka tirsan ciidamada uu hogaaminayay Sheekh Mukhtaar Robo Abu Mansuur oo ay isku beel yihiin. Sheekh Mukhtaar Robo Abu Mansuur ayaa waxa uu xilal badan ka soo qabtay al-shabaab waxaana ka mid ahaa xilalkii uu soo qabtay hogaamiye ku-xigeenka al-shabaab iyo sidoo kale afhayeenka kooxda al-shabaab. Sheekh Mukhtaar Robo ayaa ka mid ahaan jiray dagaalyahanada ugu waaweyn al-shabaab waxaana la sheegay in sanadkii 2013